majalada caalamiga ah ee Somali Magazine ayaa soo bandhigtay sanadkii saddexaad liiska boqolka qof ee ugu saameynta badan Soomaalida iyo sanadkii tagay ee 2021 iyo sidoo kale shakhsiga sanadka in ka badan 1 milyan oo qof oo ku soo codeysay website-ka Somali Magazine ayaa doortay boqolka qof ee ugu saameynta badan Soomaalida iyada oo sidoo kalena shakhsiga sanadka u doortay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Mudane Cali Guudlaawe Xuseen dhinaca siyaasadda sida ay baahisay Somali Magazine waxa ku soo baxay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaaraha dalka Mudane Maxamed Xuseen Roble gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish dhinaca ganacsatada waxa liiskan ku soo baxay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliyeed Maxamuud Cabdi Gabayre Ismaaciil Cabdullaahi Siyaad Ismaaciil Gooni iyo Ibrahim Nuur Hilowle agaasimaha Somali Magazine Ridwan Yusuf Xaaji ayaa sharaxaya liiska ay soo bandhigeen iyo boqolka qof ee ugu saameynta badan iyo waliba shakhsiga sanadkan waa sanadkii saddexaad aan soo bandhigayno liiskan muhiimaddu marka liiska loo soo bandhigayo waxay tahay in lagu dhiirigeliyo isla markaana lagu maamuso dadka saameynta wanaagsan bulshada Soomaaliyeed ku dhaxlay liiska wuxuu ku yimid codeyn socota muddo 2 bil ah bulshada Soomaaliyeed meel walba caalamka joogan u soo codeynayeen ay ku codeynayeen website-ka Somali Magazine qaabka marka hanaanka loo codeynayo wuxuu ahaa waa nomination dadku in la magacaabo categories marka bulshada u kala codeynayeen waa 8 category ugu horeeya wuxuu ahaa siyaasiyiinta ama hogaamiyaasha ugu saameynta badan sanadkii 2021 isla markaana saameynta wanaagsan bulshada ku dhaxaysa ganacsatada saxaafaddu iyo suxufiyiinta entertainment activists ama dadka u adeega bulshada Soomaaliyeed arrimaha bini'aadanimada iyo gargaar ka shaqeeya dhaqaatiirta iyo aqoon-yahanada iyo sportska sanadka marka waa sanadkii saddexaad aan soo bandhigay liiska boqolka qof ee ugu saameynta badan Soomaalida dad ka badan 1 milyan oo qof oo website-keena ku codeeyay anagu waxaan ku faraxsanahay inaan noqon qoladii mar walba u taagnayd inay dhiirigeliyaan isla markaana maamusaan bulshada Soomaaliyeed dadkooda waxtarka leh isla markaana saameynta wanaagsan ku yeeshay sanadkan 2021 bulshada Soomaaliyeed waxay u aqoonsadeen shakhsiga sanadka guulaysaha shakhsiga sanadka waxay u aqoonsadeen madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen oo u hambaleynaynaa dhammaan shakhsiyaadka liiska soo gala oo u hambaleynaynaa waxaan ku dhiirigelinaynaa inay shaqada wanaagsan ee bulshada Soomaaliyeed u hayaan meel walba ee caalamka joogaan ee hor u sii wadaan waa sanadkii saddexaad ee majalada caalamiga ah ee Somali Magazine ay soo bandhigto boqolka qof ee ugu saameynta badan guud ahaan Soomaalida iyo shakhsiga sanadka Axmed Maxamed Nuux Axmed Wacane Somali Magazine